وحير سؤال شارك سؤال مهم هو سؤال مهم وهذه نافع سوا dadka qaar waxa ku dhaca sida wiilku sheegayo waswaas baa ku dhaca shaytaanku waa cadow marka hore haduu ku guuleysto in cibaadada aad banaanka inaadan imaaninba oo cibaadada ka hor istaago uu sameeyo haduu yeeli waayo ka guuleysato oo cibaadadii soo gashana cibaadada dhexdeedu kuugu iimaanaya wuxuu sameeyaa inuu cibaadada ka waswaasiyo marka waswaasku wax weey ruuxii wuxuu isleeyahay ku dhahaya shaydaanka ku dhahaya wuxuu ku leeyahay shay aan qabatay wuxuu ku leeyahay si sax ma u qabanin hadda sax soma wad weysiisatay wuxuu ku leeyahay weysadaada waxba ka khaldana marka saas dhihi waa run sax salaadii baad gashay Allahu akbar baa tiri wuxuu ku leeyahay Allahu akbar taa tiri kaale kaafka ama qalad agow kaafka ma dasixini bal ku noqo akbar marka daada hadana wuxuu ku leeyahay ma raacda hadana wax ka khaldanaya hadana ku noqo markale wuxuu ka soo galay ku leeyahay maya Allahu akbar waad kala goysay xiriiri Allahu akbar marba meel buu ka soo galay mar wuxuu ku leeyahay waxba ka soo tifqay neef baad dabada ka timid mar wuxuu leeyahay xubinkaaga taranka waxba ka soo baxay yaa weysadii baa ka jabtay dad far badan baa cudurkaasi ku dhacaa waana cudur khatar ah cudur halis ah ruux haduu ku dhaco dadka marka dambe wuxuu gaarsiiyaa waalasho junuun wuxuu gaarsiiyaa in cibaadadii intay ku adkaato marka dambe uu isaga tago cibaadadii iyo diinta ba isaga tago wuxuu gaarayaa heer aadan xamili kareeninba ma wadi kartid waana meeshuu doonayo shaydaanku inuu dadka gaarsiiyo waxa la rabaa marka waswaaska noocaas mar wuxuu ka bilaabayaa cibaadada iyo dahaarada iyo salaada iyo marka laga tago mar tawxiidka iyo aqeedadu ka galaya sooma waka nabiga noo sheegay sallallahu alayhi wasallam uu ku iimaanaya markaas wuxuu ku leeyahay samada yaa abuuray Allah dhulka yaa abuuray Allah adiga ku abuuray Allah Allah yaa abuuray ku dhig sooma garan marka waxa tiraahdaa ilaahay baa rumeeyay waswaaskan iska xid maxaan u baahnaa marka waxaan doonayaa inaan dhowr idin siiyo talooyin oo dadka waxaas ku dhacay sida isaga daaweyn lahaayeen talada koobaad wax weeyaan horta ilaahay magan galkiisa iyo inaad ilaahay magan gasho ku dadaal وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم دعوين لغا خيرسي خدا جيرا دعوين كابدي waxaad aad u akhrisataa suurada برب الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس أيضا dhan waxay ku saabsan tahay waswaaska shaytaanka oo ilaahay ka magan galayso soo qodobka labaad wax weeyaan warka uu ku sheegayo ha rumaysanin saxna haysdin intaad rumaysato sax haysdin beeni waa qodobka ugu muhiimsan waa nabigaana inuu gula taliyay sallallahu alayhi wasallam warkiisa beeni wuxuu rasuulku sheegay sallallahu alayhi wasallam adoo salaad ku jiro ku iimaanaya dabadu ka afuufaya markaasuu ku leeyahay neef baa ka soo baxday rasuulku wuxuu sallallahu alayhi wasallam salaada ha ka bixin warkiisana ha yeelin ilaa aad ama shanqar maqasho ama urdareento bariyaha hoostooda dhexdoodu ka taabanaya ilaa waa wax balaaye qabo oo muxuu ahay uu dhax jiraaba Soma bariyaha dhexdoodu ka taabanaya markaas uu ka dhigay wax ka soo baxay xubinka taranka Soomaarka waxa laga yaabaa inuu caliye marmariyo uu yiraahdo wallahi kaadi ba ka soo daadatay war salaada ka baxo soo istijeyso hadana markaas soo istijeyso waa ka wad qoyan tahay wali oo maanta dhan masquul baad ku jiri saas daradeed nabigu kii waswaaskaas ku dhacay wuxuu yiri markaad ma ka soo baxdo musqusho soo istijeysato biyaha intaad qaado meeshan oo xubinka ku aadan maartay ku sayd meeshan biyaha maartay ku qo si hadhowto markuu ku yiraahdo war waad isku kaadiday waxba ka soo baxay aad u tiraahdo mehe waa biyaha isku daadiyay war waa beentaay biyahan anigu isku sayday way saad u dhaxdo Soomaaliga macna waxa laga wadaa ujeedadu tahay
haddaad isdhaahdo waa runtii waxaan sax haddaad isdhaahdo meeshaa way meeshuu ku dhex fadhiyo waa saxdii buu haddana kula sii socon haddana wuu kula sii socon haddana wuu kusii durkin haddana wuu kusii wadi marka dambe diintuu kugu adkaynayaa saas daraaddeed warkiisa rumaysanin soo kuma dhin waxbaa kaa soo baxay yeel ka dhe ka soco soo ma rumaynin hasixin soo kuma dhin salaadii ma xidhmin allahu akbar taadu ma xidhmin yeena xidhmin weligeedba ka soco dadka qaar buu faatixada u dhex fadhiisanaya markaas maanta waxaad arkaysaa iyagoo ku hay alxamdu الحمد قال التحيات كل التحيات هل كاسو كودا فديا سوما marka waxa la rabaa warkiisa beeni harumaysan wax sax haysdiin ka soco ilaahay ka magan gal ka xirsi xidho ma garat markuu arko inaadan dhageysanaynin waa ku daynayaa laakiin balaayo waxay ku dhex fadhidaa markaad istiraahdo waa runtii waxba khaldan iska sax marka tiraahdo halka way meesha uu kaasi luminayo qodobkaasi marka dad fara badan waayahan waa ku dhac cudurkaas meelo badan uu dadka ka galaa dadka qaar qoysku ka galaa dhalinyaro aad kor waxay yimid leh sheekhow hadal kan ku hadlaba waxa iga dhaadhacayso inaan xaaskaygu furay subxaanallahi haddaan dhaho waxaan u fahmayaa naagtaydii waan ku furay inaadhi ولكن ما درتين هذا الحمد لله ده ناقتي وفرنتا هنا يبقى نو هيستابا شيخ ما يغفر ما يوحنا نقول هو كافر معايا حتى ده تكور دي ده فرنتا هو كافر معايا لانه واحد زي علماء قاركود ليهين ونوع جنون كمد ونوع والده كمد واحد روح نوع سو كلان هذا الكيس لما بقبطبا marka heer wuxuu ku gaarsiinayaa aad halis ah oo ruuxa uu diinta ka saaray marka dambe marka iska xid inta dad dhowdahay oo fududahay la dagaalan qaabkan isaga daawo insha Allah ta'ala wafaqakum Allah wa jazakum Allah khairan ila tawfiiq hayna waafajiyo khairan Allah inoo sahlo ilaahayna tabaaraka ta'ala adduunyo aakhira hayna barakeeyo meeshiinan iyo xiriyahan Allah idinku amaansado ilaahay idinku amaansado midnimada iyo walaalnimada ilaaliya insha Allah wada jirka odayaasha ka dambeeya odayaasha warkooda hala maqlo reer aan oday lahayn waa reer bacay reeraan oday lahayn waa reer bacay Soomaalina hogaanka dhaqanka iyo odayaashu waa muhiim meeshan muxuu ahay waxa degantihiin wadan muxuu ahay dalkeena iyo deegaankeena waa ka soo fogaanay Soomaa waxaan la deganahay darisku waa gaalay u badan yihiin haddii marka isku duubni iyo ismaqal iyo is-ixtiraam iyo odayga iyo sheekh iyo haddaydan ismaqalin gaar ahaan markay siyaasaddu timaado ama hunguri yimaado ilaan Soomaali meeshay u bacday waa halkaas Soomaali waxa biyay waa kursi iyo hunguri Soomaa mar kelimadeeda ugu dambaysa waxa weey midnimadana ilaaliya ismaqalkana ilaaliya odayaashana maqla kala dambeynta ku dadaala wada jirka ku dadaala sidaas aad ku jiri kartaan iskuna ilaalin kartaan masaalixdiina ku ilaashan kartaan tawfiiqda Allah idin waafajiyo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh like Subiskerb Gabalil Kaforo